Playing De Bruyne. Carried back by McTominay! Red letter day! He'll get another go and he'll twist away from Ake and Rashford scores! De Bruyne! Benny hit by Saka. What a wonderful, wonderful goal! asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kusoo dhowaada daawadayaal qubaniga cayaaraha aanu idinka soo gudbino gacatoy show. waxaanu ku eegi doonaa 5 ciyaartay oo Manchester United ah oo isku haysta kabtanimada oo laga qaadayo ciyaaryahan Harry Maguire iyo 3 ciyaartay oo kaliya oo uga dhiman shaxda Riyada Erikton ee Manchester United ee uu la saxiixanayo xagaagan. qodobada iyo kuwa kale ayaan dhegeystayaal ku haynayo. kusoo dhowaada mar labaad barnaamijka cayaaraha. aynu ku bilownay Aymeric Laporte oo isagu ah laacib dhankaas difaaca uga dheela Manchester City ayaa go'aansaday inuu ka tago kooxdiisa kadib markii uu ogaaday in lagu gadayo lacag gaaraysa 25 ilaa 30 milyan oo pound. Laporte ayaa xilligan wada hadal u socda kooxaha kala ah Juventus, Arsenal, Chelsea. waxaana laga yaabaa inuu tago kooxda Juventus, balse waxaa loo badinayaa inuu ku biiro kooxdiisii hore oo u ciyaari jiray ee Atlantico. Tottenham iyo Arsenal laftigoodu waa ay dareenayaan laacibkan. ciyaaryahankan oo reer Spain ah ayaa berrito lagu dhawaaqi doonaa iibkiisa kama dambaysta iyo kooxda gadatayba. waayahay waxaynu soo hadal qaadnay kooxda Juventus oo iyadu doonaysa ninka odayga, balse ciqaab ayaa saaran Juventus oo markaasi lagu ganaaxay dhammaan tartamada Yurub iyo xidigaheeda oo la kala boobayo. kooxda kubadda cagta Juventus ayaa ogolaatay ganaax ay saartay UEFA oo ah iyadu in laga saaro dhammaan tartamada Yurub ee xilli ciyaareedka fooda inagu soo haya, taasi oo ka dhigan in aanay xataa ka soo qaybgeli doonin tartanka UEFA Conference League ee ay u soo baxday. xiriirka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa u sheegay Juventus in lagu ganaaxay tartamada Yurub xilli ciyaareedkan iyada oo horena uu horyaalka Talyaanigu uga jarayo 15 dhibcood oo sababay in iyaga oo kaalinta labaad ku jira ay ka baxaan afarta sare. wargeyska Second Courier dello Sport ayaa ku waramaya in UEFA iyo Juventus ay isla qaateen in muddo hal sano ah ay kooxdani ka maqnaato dhammaan tartamada Yurub, laakiin loo ogolaaday xilli ciyaareedka dambe ee 2024 ilaa 2025 inay ku soo laaban karto tartamada Yurub haddii ay u soo gudubto oo ay horyaalka Serie A ka soo gasho meelaha sare. waayahay markana aan fiirino kooxda Man United ee Harry Maguire ayaa loo sheegay inuu isaga tago kooxda Manchester United xagaagan. waxaanu Erik ten Hag u sheegay in xataa haddii uu sii joogo aanu sii ahaan doonin kabtanimada kooxda oo si rasmi ah looga wareejin doono xilli ciyaareedkan. Red Devils ayaa waxa ay doonaysaa in ay iibiso dhowr ciyaartay oo ay ka mid yihiin Harry Maguire, Fred iyo Jadon Sancho inta ka horeysa maalinta uu xidhmayo suuqa iibka ciyaartooyga ee xagaaga. 5 ciyaartooy oo Manchester United ayaa la sheegay in midkood uu noqon doono kabtanka kooxda ee bedelaya Harry Maguire, iyadoo inta badan xilli ciyaareedkii hore ee uu mas'uuliyadda kabtanimada hayay Bruno Fernandes. hase yeeshee waxaa soo baxaya oo kooxda saldhigay ciyaartooyo saameyn weyn ku yeeshay Old Trafford. tababare Erik ten Hag ayaa uu sharcigu siinayaa inuu doorto ciyaartooyga noqonaya kabtanka iyo ku-xigeenimadiisa oo iyaguna kala horeyn doona. waxaana furinta hore iskeenay Casemiro oo xagaagii hore ay Man U ka soo iibsatay Real Madrid, iyo Rafael Varane oo isaguna sanad kaga soo horeeyay Old Trafford oo ay ka wada yimaadeen Santiago Bernabeu. sida ay warbaahinta Ingiriisku sheegtay, tababare Erik ten Hag ayaa kala dooran doona 5 ciyaartooy oo midkood uu magacaabi doono kabtanimada Man U, kuwaasi oo mid waliba uu doonayo in isaga laga dhigo kabtanka cusub ee Manchester United yeelan doonto xilligan soo socda. Bruno Fernandes ayaa la sheegayaa inuu yahay ciyaartooyga ugu cadcad, balse hogaaminta Casemiro ayaa la sheegayaa inay ku keentay culays oo uu tartan adag kala kulmi doono. waxaa kale oo iyaguna ku jira liiska ciyaartooyda uu hungurigu ka hayo kabtanimada Rafael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw iyo Marcus Rashford. waayahay ugu dambaystii kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay ku raad joogtaa 3 ciyaartooy oo uu tababaro Erik ten Hag sheegay inay ka dhiban yihiin shaxdiisa riyada ee uu doonayo inuu ku dagaal galo, iyadoo waqtiga uu bilaabayo horyaalka Premier League ay ka harsan tahay muddo bil ah oo ay ku furan doonaan
wolfis oo ay kulanka koowaad la ciyaari doonaan. sanadkii koowaad ee Erik ten Hag ee Manchester United ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid guul ku soo dhamaaday oo haddana ay diyaar u yihiin inay horyaalka Premier League ay kula tartamaan kooxaha Manchester City iyo Arsenal ee xil ciyaareedkii tegay kelida ku ahaa tartanka. Red Devils oo sidoo kale dib ugu soo noqotay tartanka Champions League ee ay ka maqneyd xil ciyaareedkii hore waxa ay ciyaari doontaa 8 kulan oo saaxiibtinimo muddo bil gudaheeda oo ah inta ka horeysa bilowga xil ciyaareedka horyaalka Premierka ee ay kulankooda koowaad heleelayaan August 14-keeda. Mason Mount oo ay 60 milyan oo gini ay kaga iibsadeen Chelsea ayaa noqday saxiixii koowaad oo xagaagan ay isku xoojiso Man United, waxaana uu saxiixay heshiis 5 sannadood ah. hase yeeshee John Murtagh ayaa isagu waxa uu gacanta ku hayaa liis ay ku qoran yihiin 3 ciyaartoy oo kale oo uu tababare Erik ten uu u dhiibay oo uu doonayo in loo keeno maalmaha soo socda si ay ugu tartami karaan dhammaan koobabka la ciyaaro. 3 ciyaartoy ayaa waxaa ugu horeeya goolhaye Andre Onana oo Inter Milan ah oo ay ku bedelanayaan David De Gea oo isagu si rasmi ah uga tegay, waxaana ku xiga weeraryahanka Atalanta ee la yidhaahdo magaciisa Ramsey Hojlund oo isagu markaasi lagu daray Sion Suzuki oo isagu ah goolhayaha kooxda Urawa Red Diamond oo uu doonayo inuu noqdo goolhayaha labaad ee Manchester United. waxa kale oo uu tababare Ten Hag doonaya inuu kooxda laga diro ciyaartoyda ay ka mid yihiin Harry Maguire, Alex Telles, Brandon Williams, Donovan De Beek, Charlton Sancho iyo William Fred oo aan ku jirin qorshihiisa, inkastoo Sancho uu weli haysto fursad uu kusii joogo. waa tahay intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaa wararkii cayaaraha aad kala socoteen Gacaltooyo Show. inta barnaamijkan lamid ah dabcan aan idiin soo gudbin doono nabadgelyo ay leenahay, balse ha ilaabina inaad si fudud u taabataan farahiya like iyo share hayde wayno iyo labada dambe iyo cayaaro kale. He'll get another go, and he'll twist away from Ake, and Rashford scores! De Bruyne! Benny hit by Saka, what a goal! What a wonderful, wonderful goal! Bruno Fernandes, beautiful! Bukayo Saka, Arsenal ahead! Rashford has rifled it in!